ardayda wax ka barata jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle ayaa waxay maanta u fadhiisatay imtixaanaadkii sanad jaamacadeedka 2014-2013 semesterkii 6 ayaa waxay u fadhiisteen xarunta jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle ay ku leedahay waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay Cabdi Xaafid Maxamed Jibriil oo kamid ah macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle anagoo u fadhina imtixaankii jaamacadda bariga Afrika faraceeda Buuhoodle inay aan ku gaarnay ilaahay mahadi khayr waad aragtaan oo u fadhiyaan ardadii qaybaheeda kala duwaneyd imtixaankii maadi iyo diiniba marka waa ilaahay mahadi macallimiin haddaan nahay waan ku faraxsanahay يعنان أحمد محمد وأسقوا هرمودك كلية BBA ذا 2013 جامعة بريق أفريقيا فرع بوهولة جامعة وحديقيني سنة كان كلية صدحة ولو أي تهي سنة كي صدحات جامعة دو تهي كلية الشريعة أو أي إلى سمستر كي لحد وفري سنة امتحان كي سمستر كي أفراد يا سمستر كي لواتبا كلية بيزنس أدمنستريشن كأمام الكيمارينتا waxaa u fariisanaya semesterkii koowaad ayaa isna imtixaankii u fariistay kulliyadda BCS ama kulliyadda computer science-ka iyagana waxaa u fariistay semesterkii koowaad waxayna saddexdaasi kulliyood ahaayeen walow ay laba kulliyood hore u soo jireen BBA-da iyo shareecada sanadkan waxaa ku soo biirtay kulliyadda BCS-ta waxaa asaguna sidoo kale halkaas ka hadlay kana warbixiyay maamulaha jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle Sheekh Cabdi Shaafi Axmed Cali guud ahaan kambaska jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Buuhoodle si fiican ayaa looga dareemayaa jawga imtixaanka ardaydu dadaal bay muujinayaan waxaan mahad celinayaa guddiga imtixaanaadka iyo xafiiska imtixaanaadka oo si xoogan u shaqeynaya jazakumullahu khayran baan leeyahay hawsha sii wada ardayda dadaal iyo guul baa u rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale asaguna waxaa halkaas ka hadlay Axmed Samatar oo kamid ah macallimiinta waxa halkan aad ku aragtaan inay ka socdo imtixaankii nihaayiga ahaa ee jaamacadda bariga Afrika faraceeda Buuhoodle waxaana u fadhiya saddex kulliyadood kulliyadda shareecada iyo kulliyadda BBA-da iyo computer science wuxuuna ku bilowday guul iyo maartay farxad jawi wanaagsan waxa xusid mudan inuu xilligu maartay tennisku yahay xilli aad u qabow naxariistii roobka Ilaahay keenay oo dhulku rees yahay oo ardaygu cagaar iyo rees cagaar kula jiro wax ku diyaarinayo waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xamdigiis dana waxaa sidoo kale halkaas ka hadashay Xamdi Cabdirasaaq oo kamid ah xafiiska imtixaanaadka waxaa noo galay ama noo fadhiya arday cadadkeedu ay yihiin cadad fiican isla mar ahaantaasna waxaan ka rajaynaynaa guul iyaga oo faraxsan in ay natiijadooda helaan mana rajaynayno in waxa weeye ay ku timaado caqabado inta ay soconayso ayaguna sidoo kale halkaas ka hadlay ardaydan u fadhiisatay sanad jaamacadeedka 2014-2013 oo muujinaya dareenkooda bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdulqaadir Cabdi Maxamed kana tirsan ardayda jaamacadda East Africa University gaar ahaan kambaska Buuhoodle gaar ahaan facultyga BBA-da haddii aan dareenkayga halkan ka cabiro caawa ma soo koobi karo dareenkayga heerka uu caawa marayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu noo bilaabmay imtixaankii sanad dugsiyeedka akhirkiisa ahaa magacaygu waa Maxamed Cabdiweli Yuusuf waxaan dhigtaa kulliyadda jaamacadda Buuhoodle kulliyadda shareecada runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay imtixaankii semesterkii 6 waan u fadhiisanay hadeer waan caawa u fadhinaa aad iyo aad baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadinayaa magacayga waa Xayaat Xuseen Xasan kulliyadda ka tirsan BBA-da aad baan ugu faraxsanahay imtixaankii aan noo gabagabo ku jirno si kastaba ha ahaatee ardaydan oo gaaraysa dhowr iyo 80 arday ayaa waxay u fadhiisatay imtixaanaadkii jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle Maxamed Cali Bila telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle